bismillaahi raxmaani raxiim idilhaantiin baddaawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo saacadahan oo kale aad halkan ka daawataan warkana waxa idin soo jeedinaya anigoo Jamaal Axmed Naasira munaasabaddan oo ahayd mid si weyn looga soo shaqeeyo ay ka soo qayb galeen saraakiisha caafimaadka wasaaradda caafimaadka hay'adaha wada shaqeynta ay leeyihiin wasaaradda caafimaadka iyo bahada ehelka u caafimaadka ayaa lagu xusayay u dabaaldegida maalinta qaaxada adduunka oo caalamka oo dhan looga dabaaldego iyadoo xuska maalinta xadhiga lagaga jaray oo lagu tilmaamsaday xarunta daaweynta qaaxada la qabsata daawada ee MD arka loo yaqaano madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa sharaxay qorshayaasha ay xukuumaddu kaga jirto ka hawlgalka kor u qaadida adeegyada caafimaadka isagoo sharaxay ahmiyadda ay leedahay inay Soomaaliland horumar ballaaran ka samayso daaweynta xanuunka qaaxada oo dhibaato badan caalamka ku haya qiimaha badan in la xuso maadaama dagaal lagula jiro qodob halisa oo adduunyada intiisa la sheegayo adduunyada badan lumaada TB-da oo markaa soo egtaa waxa aad u dhigaa marka aynu eegno dhaqankeena iyo sida ay wadka barina iyo sidaa maaragtay wax eego aragnada dee khatar ay tahayo Soomaalidu ay xataa TV madale dhaxayda baysan oo neecay qofku asariya laakiin qofku xanuunkiisa ka hor sheego waxay la mid tahay sida duriga looga daweeyo ka tahay sababtoo duriga waxa laga yaabaa koorasyo jaawano koorasyo afar todobaad inuu qaato laakiin waxay koorasyo loo baahan yahay oo wada leeyahay dootay qaar ka duwan tahay marka qofku xanuunkiisa uu qaato ama uu kafir istuuriyo oo ismaa laakiin markaan ku xasano inuu ka heshono waxay qoraysaa dhibaateyn waxay qoraysaa qofku isaga dhibanaaya oo khatar ku jiraya wuxuu dhibayaa dadkii walaalihi u dhibaya oo inta uu dawada qaadan wuxuu qaadsiinayaa dadkii ula nool qaadsiinaya laakiin sida hore loo sheegay marka qofku dawada bilaabo wuxuu noqonayaa qofka dadka qaadsiinaya wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa ka waramay in xuskan ay Soomaaliland la wadaagayso beesha caalamka daaweynta iyo ciribtirka cudurka qaaxadana ay bahda caafimaadku ka galeen dadaal ballaaran isla markaana lagu horumarinayo sidii qaaxada iyo dadka ay ku dhacdaba looga daweyn lahaa gobolka iyo hadafkeedu waxa weeye in aanu gaarno heerka ugu hooseeya TV-da insha Allah waxaan marka uga mahadnaqayaa hay-adaha naga caawiya sidii aan u xakameynaa cudurka TV-da oo ugu horeysa hay-adda World Vision oo runtii ka hawlgasha saddex badan oo dalka ku yaala WHO iyo inta kale hay-adaha kale iyaguna ku mashquulsan xakameynta cudurkaas waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa fanaankeena caanka Fahad Cumar oo tiriyey oo aan u isticmaali doono waxaa ka dambeeya inaan ku xurmeyno hadalka waa la yidhi oo ma badinayo waxaan halkan uga ducaynayaa saaxiibkani wasiirkeena warfaafinta oo agsarkii aanu galnay ju ka soo gaadhay ninka dibadda ugu maqan in intayda kale waa caafimaad rabnaa 9 qof baan nahay ilaahay wuxuu naga gaarsiin wanaga shaqaysanayno isna ilaahay inoo soo caafiyo si caafimaadkiisa soo ducaynaya Sheekh Khaliil Cabdulaahi Axmed wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland ayaa sharaxay sida diinta islaamku u waajibinayso isdaaweynta iyo ahmiyadda ay ugu fadhido in bulshadu ay caafimaad hesho Dr. Said Ismaaciil Xasan agaasimaha waaxda la dagaalanka qaaxada ee wasaaradda caafimaadka iyo Abiib Aadan Nuur oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa si isku mid ah uga waramay qorshayaasha wasaaradda caafimaadku kaga hawlgasho xalinta iyo ciribtirka xanuunka qaaxada isla markaana sheegay in Soomaaliland
isku filnaansho ballaadhan ay ka gaadhay daaweynta iyo cidhibtirka qaaxada xubno ku hadlayay hay-adaha cudurka TB-da kala shaqeeya wasaaradda caafimaadka ayaa ku dheeraaday sida ay ugu go'an tahay inay sii wadaan taageerada ay ka geystaan xanuunka qaaxada iyo dadka ay ku dhacday iyo daawada ay bixiyaan madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiirka caafimaadka Somaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa si wada jira xadhiga uga jaray dhismaha lagu xanaaneynayo dadka daaweynta qaaxadu la qabsato ee qaaxadu ay ku soo noqoto taasoo ahmiyad ballaadhan ay ugu jirto bulshada xaruntana ay tahay xarunta ugu ballaadhan ee geeska Afrika laga sameeyay oo ahmiyad badan ugu jirta Somaliland iyo sidii ay uga badbaadi lahayd xanuunada faafa ee dunida ka socda ridwaan Caydiid Ismaaciil iyo Nimcaan Axmed Dagaal telefishinka qaranka Somaliland magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland oo waraysi gaar ah siiyay TV-ga qaranka ayaa ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan gudaha ee Jamhuuriyadda Somaliland warkaas oo faahfaahsanna waxaynu eegaya wariye Xamse Cali Bulbul wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Biixi oo waraysi dheer siiyay TV-ga qaranka Somaliland waxa uu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland iyo tan gudaha Biixi ayaa sheegay in safarkii madaxweyne Sinaayi ku tagay Laasqoray uu ahaa mid diblomaasiyadda Somaliland qurxiyay isagoo ka hadlay waxa uu leeyahay waxa loo muuqatay in dadku aad happy u yihiin nabadgelyada haystaan nabadgelyo ballaaran taalo ummadu aad ugu faraxsan tahay horumarka xagga nabadda iyo deganaanshaha Somaliland ay gaadhay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland waxa uu ku eedeeyay maamulka madaxweyne gaaska Puntland in gobolka colaad uu ku horinayo Puntland waxay ka mid tahay Soomaaliya waa gobol taban shaar baanu nahay gobolka sheeganaya Puntland laakiin Puntland ayana way ogsoon yihiin caalamka way ogsoon yahay xuduudooda halkay ku qeexan tahay xaqna uma laha inay ka hadlaan marka mutagno magaalooyinka iyaga waana mutagina Somaliland ogolaan mayso in xuduudaheeda laga soo tallaabo gardarana lagu sameeyo anagu nabad baan jecelahay wanaag baan jecelahay jacayl wanaagsan baan jecelahay si yeeshee uu ogsoon tahay dawladda gobolka Puntland iyo dawladda Soomaaliya xuduudaheena halkay kala yihiin mana qofna kuma oran karo qof hebel baan isku raadnaa isku sheegnaa isku qoranahay oo aan qabsanayn kama oran karo hadeen Somaliland xarshin ayaa anaka abato wajaalada ay shishaayana faqeerana ka degan marka xuduud muayana jira xuduudana xuduud aan ogolaanayn in laga soo tawaado maaha nabad baan rabnaa dawladii hore ee Puntland iyo madaxweynihii hore ee qaasiyaan baan lahayn wala socotaa madaxweynaha wuxuu campaignkiisa ku kala rabshad iyo dagaal iyo isagoo dhul baa soo dhiganaya oo dagaalada ana ku xanuunsan dadkii ka wato inaan dadkii soo aragno wasiirka arrimaha dibadda Somaliland waraysiga uu siiyay TV-ga qaranka Somaliland waxa uu markii ugu horeysay kaga hadlay xiriirka qaramada midoobay iyo Somaliland isagoo meesha ka saaray warbixin qaramada midoobay soo saartay oo lagaga hadlayay xaaladda siyaasadda ee Somaliland iyo doorashooyinka horta Somaliland iyo United Nations wax dhibaato kala dhaxyaala ma jirto waa runta oo markuu SRG ama qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay hargeysa yimid su'aalo la socnaa waxa dhacday dhibaato yar hase yeeshee dawladda Somaliland ilaa qaad fiican baan leeyahay isaga iyo UN-ka gabiyahantood uma arkaan xisaabi waan qabatayno xisaab cilaaqaad xunaan leeyahay ma jirto Somaliland waa wadan dimuqraadiya oo waddan sawir socodka miirihiisa sharaadkiisu xor yihiin ووطن تذكر قاعد واحد قبان جرائد هي TV iyo dabadaba wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Biixi sidoo kale waxa uu ka hadlay xiriirka Ethiopia iyo Somaliland iyo tan Ingiriiska iyo Somaliland isagoo sheegay in madaxweyne Axmed Sinaayo guddi afar wasiir oo magacaabay adkeynta xiriirka Ethiopia iyo Somaliland madaxweynuhu magacaabay afar wasiir oo aan chairman u ahay oo ka mid yihiin wasiirka qorsheynta wasiirka commerce iyo wasiirka dakhliga يعني أخذت هذا حرير لي أنا وضحي الله سمينه والله نحن سوينا
inaan aad iyo aad usii xoojinaan doonaynaa cilaaqaadka Soomaaliland iyo Itoobiya aad buu wanaagsan yahay. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland sidoo kale waxa uu ka jawaabay eedeymo qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaridka Soomaaliland isaga uu soo jeediyeen oo aynu ku mashquulay maalgelinta iyo dhinaca mashaariicda dhaqaalaha iyo dhaqaale xoogeynta iyo shaqo raadiska iyo mashaariic raadinta طبعا dad ajnabi ah ragaraayada Soomaaliya oo ka mas'uula oo marka ay mudee wadan doonaya maalgashiga inuu wadanka yimaado halka uu horseeyo dalka Soomaaliya aniga marka dabcan tiiko inay mas'uuliyad aad u saaran wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga ayaa ka qayb galay xaflad lagu furaayay warshad cusub oo soo saari doonta buskudka wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo madaxtooyada Soomaaliland ayaa ka qayb galay kulan lagu furaayay warshad cusub oo soo saari doonta buskudka keega iyo waxyaabaha macmacaanka ah warshadan oo maalintii soo saari doonta ayaa la yiri 300 oo kartoon ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Maxamed Cabdilaahi Cumar oo ugu horeyn ka hadlay xafladaasi lagu daahfuraayay warshadan ayaa tilmaamay ahmiyadda ay shirkadani ku soo kordhin doonto dalka waxaana uu tilmaamay in waxyaabihii dalka dibadda uga iman jiray lagaga maarmi doono waxaan rajaynayaa in noqoto mid dhiirigelisa wax soo saarka dalka iyo warshadeyntiisa waxaan u rajaynayaa in ay noqoto mid lagu hirto oo waxtarka dalka iyo hawlihiisa meel weyn ka gasha dhinaca kale arintani waxay kala muujinaysaa sida ganacsatada Soomaaliland iyo muwaadiniintuba ay imika ugu heelan yihiin in ay ka qayb galaan korinta iyo kobcinta dhaqaalaha dalka Xaaji Cabdi Xuseen Cabdi Waraabe ayaa u duceeyay dhalinyartaasi iyagu dalka warshadani keenay waxaana uu ku dhiirigeliyay ganacsatada dalka in ay iyaguna warshado noocan oo kala ah ay dalka keenaan wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegay inay ka dawlad ahaan ay garab istaagi doonaan cid kasta oo maalgashi ku sameynaysa dalka waxaana uu tilmaamay in shirkadani ay wax weyn dalka ka tari doonto aad iyo aad baan u bogaadinaynaa una dhiirigelinaynaa mulkiilaha warshadan furay iyo dhammaan dadka reer Soomaaliland ku hawlan dalka horumarkiisa dalku wuxuu horumaraa marka dadkiisu ku tabcaan dal walbana dadkiisa horumariyo wax ka dhiga runtii dadka ugu muhiimsan ee dalku ku dhisan yahay ee aanu jirin la'aantii waa dadka ganacsatada ee bixiya cashuurta haddaan la helin dadka cashuur bixiyaasha ah mushaarka ciidamada la siiyaa suurtagal maaha mushaarka shaqaalaha la siiyaa suurtagal maaha waxaanu ku shaqaynaa anagu ka wasiir ahaan wasiir ku nahay oo wax ku qabanaa cashuur bixiyaashu wixii laga qaado waxaanu mushaar u qaadanaa wixii cashuur bixiyaasha laga qaado marka waanu dhiirigelinaynaa qof kasta oo muwaadin oo dalka ganacsi ama ka ganacsadaan wax ku soo kordhinaya aad baan u dhiirigelinaa gabagabadii wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xariga ka jaray warshadan cusub ee soo saari doonta waxyaabaha macmacaanka ah waxaana uu wasiirku soo kormeeray qaybaha kala duwan ee ay warshadani ka kooban tahay agaasimaha samafalka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabatay xafiiskeeda ayaa ka warantay safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku soo maray gobolada dalka warkaasi waxay noo eegaya wariye Axmed Saki Daahir Xasan maarayaha xafiiska samafalka madaxtooyada ee Soomaaliland Marwa Amne Maxamuud Diriye oo shirkeedan jirayd ku qabatay xarunta qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa kaga hadashay arrimo door ay ka mid yihiin safarkii madaxweynaha Soomaaliland dhawaan ku tagay qaar ka mid ah gobolada dalka ee muddada 10 cisho qaatay sidii milgaal ahayd ee loogu soo dhaweeyay goboladaasi iyo waliba sida shacabkiisu ay ugu soo dhaweynayeen waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Siinaanyo oo runtii safaraan madaxweyne hore aanu dalka ku maray guulo waaweyn ka soo hoyay safarka aan aad iyo aad ugu hambalyeynay madaxweynaha safarka qiimaha leh ee uu ka soo hoyay guusha isagoo u kuurgalayay xaaladda dadkiisu ku nool yihiin si gaar waxaan ugu hambalyeynayaa laas qoray oo madaxweynuhu tegay oo aan safarkaa kula soconay soo dhaweyntii qiimaha lahayd ee reer laas qoray sameeyeen aanu arkaynay iyagoo calanka Soomaaliland lulaya saacado fara badanna aanu joognay
dhammaantood tuulo aan u maray safarkaasi safar la macnayn karo runtii uu ka ballaaran yahay safar shirta ay lagu sheegi karana uu ka ballaaran yahay ummadda reer Somaliland aad iyo aad bay ugu farxeen dadka reer Laas Qorayna waxaa leeyahay qiimaynta aad muujiseen kalgacalkii aad muujiseen madaxweynihiinii intaasoo safar idiin soo maray aad muujiseen aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa geesta kale Marwa Amne Maxamuud Diriye waxay hambalyo u dirtay wasiiradii madaxweynaha Soomaaliya ku weerinayay gaar ahaan kuwa waxqabadka muujiyay oo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Marwa Samsam Cabdi Aadan ay ku ka ahayd waxaan kaloo hambalyeynayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Marwa Samsam Cabdi Aadan oo dumar ahaan annaga ay mataabanayso sidii qiimaha lahayd ee loo soo dhaweynay goob kasta oo tagnana ay waxbarasho ka jirtay aad baan ugu hambalyeynayaa iyo wasiirada kale dhinaca kale Amine Maxamuud Diriye waxa ay baaq dheer u dirtay isuduwayaasha gobolada ee xafiiska samafalka madaxtooyada waxaan halkan baaq uga jeedinayaa dhammaan isuduwayaasha samafalka noo fadhiya gobolada inay insha Allah baahida gobolada iyaguna ay si fiican oo mug leh ula shaqeyn doonaan maraykanka cadowga Soomaaliland Marwa Amine Maxamuud Diriye waxa ay tiri waxaan leeyahay qolooyin baa TV ka hadlay cadowga Soomaaliland kuwana waxaan leeyahay ashaga dadweynuhu libaax uga gaban waay inaan goryaco laga tagaa waa hal soo guray wararka naga soo gaaraya gobolada dalka ayaa iyaguna waxa kamid ah gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duuqa degmada Caynaba Faysal Ahmed Jaamac ayaa dhinaciisa leexiyay eedeymo kala duwan oo maalmihii u dambeeyay qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba ay maayirka u marinayeen dhanka saxaafadda gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duuqa degmada Caynaba Faysal Ahmed Jaamac waxa uu xildhibaanadani golaha deegaanka ka tirsan eedeymaha u soo jeediyay ku tilmaamay inay dabada ka riixayaan xisbiga mucaaradka ah ee wadani isla markaasina ay xildhibaanada isku qabteen dhinaca mushaharka isla markaasina waxa uu sheegay in xadiga ay xildhibaanadani soo gudbisteen inay mushaharka ka dhigtaan aanu ahayn mid ka soo bixi karaya dakhliga dawladda hoose ee magaalada Caynaba waxaana maayirku isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii kamid ahaa halkan waxaa ka soconayay motion siyaasadeed oo ku saabsan mushahar kulmin kan fadhigii ugu dambeeyey intii aanu meesha joognay shaqaalaha dawladda hoose waxaanu mushaharka u kordhinay 3 jeer waxaa lagu soo loohay motion siyaasadeed waxa markaa hogaaminaya wadan waayo marka waxa la kordhinay macnaha 100% waa ka badan tahay هذه كرسيين marka waxa ku leeyahay waxa loo baahan yahay loo sameeyo miisaaniyada 100% maxaa horay ilaahay waa iska kulmay waa meesha siyaasadeed oo ay macnaha agaha ku shiidanayso wadan iyagoo halkaan cala lix ka ahaayeen miisaaniyada dawladda hoose waxaan ka qaadnay 520 tii ugu dambeysayna ee 2014 kana waxaan ku xubnay 9 shaqaalaha waxaan mushaharka u kordhinay 3 jeer 20 laba jeer oo ay markii ugu dambeysay aan 30% aanu kordhinay waxaa jirtay gudnada golaha deegaanka shaqaaluhu way ka mid ahaayeen waxay qaadan jireen 700 laaga bishii diwaan qoray siyaani maaha laaga ana wax macquul ahaan waxay malayeen 700 doonayeen malayeen ma qoray mid kale la sidii waxay ahayd waxaanu ridaynaa noo qabto ka fadhi أنا وصل نوع هذين وحوي تبدأ على كل مين تقول دي يعني الشيء يقول ما العقبة صوت حطي يا تبدأ على بعد كل مين وأنا أنا كان بين وصل من إيه شيء لا إيه jaamac boodacade TV qaranka Soomaaliland
caynaba warkii ood kala socoteen telefishanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland daawadayaasheeda aanu jecelnahayow intaas ayaa uu nagaga idil yahay warkan iyo warar kale faahfaahsanba waxaad ku daawan doontaan baahimahayaga dambe ee soo socda inta sakooraysa waxaan idinkaga tagayaa anigoo Jamaal Axmed Naasir is aragti maqal dambe koor assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh